Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa magacaabay daawadayaal 8 xubnood oo caan ah ayna wada yaqaanaan dhammaan bulshada Soomaaliyeed waxa uu ku soo aadiyay magacaabidooda xilli madaxweynaha qaranka Xasan Sheekh Maxamuud uu ku sii jeeday dalka Turkiga oo uu ka helay booqasho rasmi ah hase ahaatee dadka ayaa si kala duwan u qaadaa dhigaya daawadayaal magacaabidan waana 8 xubnood oo dhamaanteed ay wada garanaysaan markaan halkan sawiraantooda iyo shaqooyinka loo magacaabay idin soo dhigo waa la wada yaqaanaa qaar saxaafadda ayay caan ku ahaayeen oo dadka saxaafadda ayaa ku dayan jiray oo role model u ahaayeen dadka qaarkoodna waxay ahaayeen kuwa dhaqaatiira kuwa qaarkood waxay ahaayeen kuwa jaamiciyiin professorro ah oo la wada yaqaano doodahana ka qayb qaata hase ahaatee magacaabidooda oo loo magacaabay xafiiska ra'iisul wasaaraha ayaa daawadayaal waxay ka dhigaysaa bay dadka qaarkood leeyihiin in ra'iisul wasaare Xamse uu magacaabay ama uu ka dhabeeyay dadkii uu sheego uu yiri dad aqoon leh waxa ay qabanayaan aqoon loo yaqaanana ayaan magacaabi doonaa arrintaas waa uu ka dhabeeyay leeyihiin hase ahaatee waxaan rabaa halkan inaan kula wadaago sawiraantooda iyo macluumaadkooda dadka uu magacaabay ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Xamse Cabdi Barre oo haatan sawiraantooda halkan aad uga jeedaan kuwaan oo noqday daawadayaal kuwii haatan baraha bulshada ugu dambeeyay haystay sidoo kalena uu magacaabay ra'iisul wasaaruhu hase ahaatee dadka qaarkood waxay tuhun gelinayaan waxa ku soo aadiyay xilli madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu safar ku maqan yahay qaarkood waxay leeyihiin ma wixii farmaajo laga bartay oo ahayd markuu baxayo in safarkiisa dadka laga sii jeediyo waxana la magacaabo la mashquuliyo miyay bilowday dowladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra'iisul wasaare Xamse qaarna waxay leeyihiin ma iskabashadoodii iyo ishayntii ay xilalka qaarkood isku hayeen ama ku kala aragti duwanaayeen ayuu wax badan ku bedeshay bay leeyihiin ra'iisul wasaare Xamse qaarna waxay leeyihiin ra'iisul wasaare Xamse ayaa go'aanka u madax banaan oo asaga ayaa magacowday wixiisa oo wuxuu yiri madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud adiguna wasiiradaada iyo qaybaha aad leedahay soo magacaabo arrintaas ayay dadka qaarkood qaadaa dhigayaan hase ahaatee sida xaqiiqada ay jirto waxa weeye inaysan jirin wax ishayna ee madaxweynaha jamhuuriyadda iyo ra'iisul wasaaruhu ay ishayaan sidoo kalena kala aragti duwanaan kale oo jirta ayaaban jirin daawadayaal hase ahaatee dadka qaarkood ayaa si kala duwan wax u qaadaa dhigaya waxa ayna leeyihiin hadba nin dhan xun ayay wax ka fiirinayaan hase ahaatee sida waxa isweydiinta mudan ama sidoo kale waxa isqorsheynta mudan ayaa waxay ka mid tahay daawadayaal in ra'iisul wasaare Xamse uu ka dhabeeyay ballanqaadka ahayd dad yaqaana waxa ay sameynayaan inuu keeno dad aqoon leh inuu keeno iyo sidoo kale dad xirfad leh oo bari caadifad iyo sidoo kale baraha bulshada ka caytamin in uu keeno xilalka sidoo kalena ay noqdaan ayaguna kuwa u shaqeeya qaranka sidoo kale shaqada loo idmaday kuwa kamira dhaliya inay noqdaan oo ayagana ay noqdaan kuwa xilka loo magacaabay u gutay sida waajibka ay tahay inay dalka iyo dadka intaba ugu shaqeeyaan taas ayaana muhiim ah hase ahaatee safarka madaxweynaha laftirkiisu waxa uu noqon doonaa midka uu Turkigu ku aaday mid uu ku maray caalamul islaam iyo sidoo kale dalalka aan walaalaha nahay ee ay naga dhaxaysa diinta islaamku ayuu ku aadayaa baa la yiri war ka soo baxay madaxtooyada Soomaaliya sidoo kalena waxa la leeyahay hadii uu dalal kale aadi lahaa dadka qaar ayaa cabasho keen laasa ahaatee Turkiga oo aan ognahay waxyaabaha uu noo hayo iyo sidoo kale meelaha uu naga taagan yahay ayaa daawadayaal waxay leeyihiin dadka Soomaaliyeed badankoodu waxay xaq ay dhaheen Turkiga inaan mar walba booqano sidoo kale la hadallo sidoo kale waxay leeyihiin inaan dalka Turkiga mar walba walaalo dhow ka dhigano waxay noo sameynaysaa bay dhaheen wax aad u wanaagsan bay dhaheen waana wax samcadeena iyo waxay dhaheen sharafteena intuba ay ku hagaagaysaa ayay dhaheen daawadayaal sidoo kale waxay leeyihiin safarka madaxweynuhu halka ku tagay waxyaabaha kale oo looga wada hadli doono waxa kamid ah isku soo dhaweynta dowlad goboleedyada iyo dowladda oo ayaga laftigooda sida la sheegayo daawadayaal mar dhow sameyn doona igoonu isku taag lana sheegay inay Puntland hogaaminayso 4 dowlad goboleedna ay ka kooban yihiin marka laga reebo Hirshabelle 4 kale waxay ku kulmi doonaan Bale Garowe isla bishaan ay la hadlayeen dhexdooda waana xukuumadda markii la soo dhiso kadib baa la yiri waxayna halka ka mucaaradi doonaan dowladda golo lagu dhan yahay ama ay wada dhan yihiin ayayna halka ka sameeysan doonaan waxayna sidoo kale sameyn doonaan daawadayaal inta haatan la og yahay inay magacowdaan madax sidoo kalena hoos u wada shaqeeyaan ayna isgarab istaagaan oo ay noqdaan kuwa isgarab taagan sidoo kalena mar walba iyo dhan walba ka noqda daawadayaal kuwa ayagu ka tashada baa leeyahay wixii ka dhana dowladda federaalka oo dowladda dhexe ay noqon doonto sidii dowladda farmaajo kale ayna ka dhigi doonaan tuka cambaarna sida ay sheegeen ayaguna ay noqon doonaan kuwa isku tashaday baa la yiri sidoo kalena ayagu geenu istaag sameeyay ayaa la leeyahay arrintaas waxaana la sheegayaa Saciid Cabdullaahi Dano asagoo aad uga careysan kursiga ra'iisul wasaaraha iyo Axmed Madoobe aan aad ugu kalsoonayn asaga laftigiisu la sheegayana asaga iyo Xamse inay waayii ugu dambeysay si kala furteenba wixii doorashadiisa ka dambeeyay ayaa sidoo kale daawadayaal waxa ayaguna halkan taagan oo mar walba caqabado ku ah in dowlad goboleedyadu hadii dowladdan ay mucaaradaan ay noqon doonaan caqabada ugu horeysa ee Soomaaliya ka jirta ayna tahay dhammaan bulshada Soomaaliyeed inay ku baraarugto ayna tahay arrintaasi mid la rabo in lagu wada baraarugo dadka Soomaaliyeedna ay wada garowsadaan arrintaas oo noqonaysa daawadayaal
in la haatan inta la ogyahay mid caqabada ugu weyn ee Soomaaliya taala noqota sidoo kalena ay noqoto bulshada Soomaaliyeed inay aad uga falceliso aad iyo aadna arrintaas uga kacdo ayna uga hadasho aynu ku garab istaagto dowladda federaalka inay ka adkaato dowlad goboleedyada sidoo kalena ay maquuniso anagoo og in dowladda Maxamed Cabdullaahi Farmaajo qaybo ka mid ah ay ka adkaatay sidoo kale kuwa kalena ay ku cadaadisay inaysan ka bixin dalka aysan la kulmin dalal shisheeye ayaa daawadayaal haddana waxaan ognahay in soo laabashadii la'aantiisii ay ayagu ka dambeeyeen qaybo ka mid ah ay ka dambeeyeen sidoo kalena ay karkaarka weydaariyeen ayna sababeen inuu soo laaban arrintaasoo ka dhigtay daawadayaal inta ilaa haatan la ogyahay kuwa ka adkaaday iyaga laftigoodu markiisa Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ayaguna meesha ka saaray taasoo ka dhigaysa in ra'iisul wasaarihi maanta la dagaala asaguna berri uu isku diyaariyo inuu soo laaban haddii uu ka adkaan waayo walow hadduu ka adkaadana qaabo badan oo ka mid ah ama qaarkood ay noqon doonaan kuwa ayaguna aad ula shaqeeya sidoo kale kuwana ka soo horjeesta hase ahaatee shirkooda waxay kusoo aadin doonaan baa la leeyahay magacaabista golaha wasiirada oo ayaga laftigoodu noqon doona markii la magacaabo golaha wasiirada in dad badan ay ka biyadiidaan dowladdan sidoo kalena ay bilaabaan bilo kadib mucaaradid iyo arrintaasoo ay noqon doonto ayaga laftigoodu inay aad u mucaaradaan dowladda maadaama baa la leeyahay golaha wasiirada dad badan ay ku daraynayaan haddii ay waayaanna ay noqon doonaan baa la leeyahay daawadayaal kuwa dowladda mucaarada ka soo horjeesta sidoo kalena dhaliila arrintaasoo noqon doonta ama iyaga u noqon doonta mid laftigooda samcad xumo ku ah oo mar walba mucaarad joogto ah weliba dowladda Puntland iyo dowlad goboleedka Jubbaland ay u noqon dooneen arrintaasi ku noqon doonto tuka cambaarla ay ku noqon doonaan arrintaasna ay noqon doonto daawadayaal midda ilaa haatan inta la ogyahay ay mar walba mucaarad gooniya oo joogto ah ay dadku kugu nacayaan oo xataa dadka aad maamushid ama aad u talisa madaxda u tahay laftirkoodu aysan rabin mucaaradid joogto ah in dowladda federaalka iyo sidoo kale saanad qaybsiga laftirkiisii aad waxaad xaq u lahayd weydii sidoo kale sixir barar iyo maxaa la oran jiray iska daba wareeg iyo lacagta kor u kacda iyo ganacsiga oo kor u istaaga ay bilaabato laftirkeeda aysan wax dana kugu jirin ayna ka shaqaynayaan laftirkaagu dadka aad adigu maamushid in aad soo noqo laftirkaagu oo aad noqotid mid guul daraystay hase ahaatee daawadayaal arrintan ayaa waxay noqon doontaa mid laftirkeeda isha lagu hayo saacadaha soo socda sida la ogyahay daawadayaal waxayna noqon doontaa mid aad iyo aad looga fiirsado hase ahaatee daawadayaal waxaa jirta iyada laftirkeedu in safarka madaxweyne xasan sheekh maxamuud sida la sheegayo waxyaabo badan lagu soo kala furfuri doono ay ka mid tahay waxyaabahaasi in uu noqon doono dowladda Turkigu mid heshiisiisa ama ku dhex jirta dowladda Soomaaliya si ay u noqoto dal walaala oo mar walba garab iyo gaashaan u ah dalka Soomaaliya iyo dadka intaba daawadayaal waxaan isku codsanayaa video ku xinta isugu maan doono dhammaantiin meel walba ay joogtaan channelka subscribe dhaataan sidoo kale gambaleelka furataan siina share gareysaan idinkoo la wadaagaya asxaabtiina sidoo kalena si share gareynaya barnaamijka oo la sii wadaagaya daawadayaal asxaabtiina rukumanaya gambaleelka furanaya oo noqonaya kuwa ka qayb qaata ama suga wararka sugan ee aan halkan kusoo gudbinayno inta waxaan idinkaga tagayaa video ku xigaysa ku imaan doono dhammaantiin meel walba ay joogtaan bulshada Soomaaliyeed waxaan idinkaga tagayaa daawadayaal nooli kulanta meel walba ay joogtaan dhammaantiin daawadayaal